bishii Oktoobar 1993 ciidamadii Mareykanka ee loo yaqaanay Rangerska ayaa bilaabay howlgal ay kaga soo dhaqaaqeen xaruntii ay ku lahaayeen dowladka magaalada Muqdisho. Ujeedada ayaa ahayd in la soo qabto Generaal Maxamed Faarax Ciidiid, hogaamiyihii isbahaysiga SNA. ciidamada Mareykanka uu hogaaminayay waxay ka koobnaayeen 19 diyaaradood, 12 gaadiidka gaashaaman ee loo yaqaano Hamis iyo ciidamo gaaraya 160 askari. Cali Diiriye Jimcaale wuxuu ka mid ahaa dadkii u soo joogay dhacdadaasi kana waramaya. 3 Oktoobar waa dhamaadkii dagaalkii 1993 soo bilowday 5 Juun loogu magac daray 24 reer Pakistan. markii 3 Oktoobar waxaa lagu magac daray 18 Rangers. 4 bilood ayaa dagaalkaasi socday. intii joogtay iyo intii maqashaba waxaa la wada ogyahay dagaalkaas wuxuu ku dhacay iyo cidii ku dhacay cidii geystay inta waa laga warqabaa. caalamkuna maanta wuxuu marayaa howlkan oo kale in dadku saas uu iskaga warqabo ama isku arkayo. dagaalkaas waxaa soo qaaday Mareykan, wuxuuna ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed, khaasatan SNA ku soo qaaday. qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed afkooda SNA ayagoo maanta ku hadlaya. dagaalkaas gardarrada ah oo Mareykan ku soo qaaday laba qodob ayaan rabnaa maanta inaan ka hadalno. SNA waxay diyaar u tahay Soomaalinimo iyo heshiis, laakiin waa inay xaquuqdii iyo gardarrada ay lahayd oo gardarrada lagu dilay waa inay heshaa. waxaana mas'uul uga ah qaranka Soomaaliyeed. waxyar kadib markuu howlgalka bilowday, ciidamadii taageersanaa Generaal Maxamed Faarax Ciidiid iyo dad shacab ah oo hubeysan waxay soo rideen 2 diyaaradood oo noocoodu yahay Black Hawk. waxaana xigay howlgal la isku dayay badbaadinta askartii 2 diyaaradood ee la soo riday. waxaana howlgalka madaxa la galay ilaa maalintii xigtay ee 4 Oktoobar. Bashiir Xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi, wuxuuna ku waramay sida tan. waxaan ka mid ahay dadkii ku waayay xubnahooda 93 waa 3 Oktoobar. waxaana nagu soo duulay dawladihii caalamka ugu waaweynaa oo sheeganaya in ayagu waliba ay hadba soo diranayaan wakiilo Soomaaliya waliba soo diranayaan. kaligay ma ahana malaayiin ayaa xubnahoodii ku weyday bareelis ah, wali naftu ku jirtaayo aan kaadida iyo xaarkiisa duubi karin. haddana dawladihii geystay oo Amerika hogaaminaysay aysan inay geystay in kala aysan warba ka haynba ee ay ku sii faanayso inay ayadu ay burburinayso wali. subaxaas markii aan sii faaleeyo waxaan ahayn dadkii soo dhaweeyay koow dawladahaas Amerika hogaaminayso. waxaana loo soo dhaweeyay inaan nahay dad dawlad jirta Soomaaliya. waxaana soo dhaweynay dawladahaas. markii aan soo dhaweynay soo dhaweyntii iyo karaamadii waxaana lagu bedelay duqayn iyo diyaarado iyo madaxda la laayo iyo wadani kasto la dilo iyo in la yiraahdo meel ay soo yirimaadaanba hala laayo rag iyo dumar, ayadoo la reebin saqiir, ayadoo dumar laga tagin, ayadoo culimo laga tagin, waxba la cafin ayay kulli dhameeyeen. 16 saacadood baa waxaa socday dagaalka 3 Oktoobar. intaas xabadu kor iyo hoos way haysatay. waxaana ku dhimatay kuna naafowday wax ka badan malaayiin qofood 16 saacadood. xataa waan geysanay dawladihii waaweynaa baan nahay war waxbaan ka dhiibaynaa raali gelin iyo waxbaan ka dhiibaynaa wali maayne. waxa hadda jooga ayadoo dawladda Soomaaliya oo aan tabar lahayn dhisan tahay baa waxaa jooga wakiilka qaramada midoobay ay soo dirsatay nimanka sheeganaya oo haba yaraatee aan ka hadlayn dhibaatada naloo geystay gobol mintuulo min magaalo madax. dagaalka ayaa sababay dhimashada 18 askari oo Mareykan ah, dhaawacuna wuxuu gaaray 73 askari oo Mareykan ah markii askarta qaarkood ay ku go'doomeen xaafadaha dhexdooda. waxaana dhaawac ku jiray duuliyay mid ka mid ah diyaaradahaasi. waxaa intaa dheeraa askar Pakistan iyo kuwa Malaysia u dhalatay ayaa ku dhintay sidoo kale. waxaa markale ka waramaya Cali Diiriye Cali Wadaad. dagaalkii 5 Juun bilowday 3 Oktoobar 1990 iyo 3 dhamaaday. wixii dhacay waxa ay ka sheegaan ayagu 5 Juun 24 reer Pakistan iyo 18 Rangers. wixii dhacayna waxay la tahay wixii dhintan Allah u naxariistaa leenahay. intii wax ku gaareen Allah ku booqday leenahay. Caaqil Muumin Cabdi Fiidow Muumin oo loo yaqaan Muumin Greek ayaa ka waramaya sidoo kale waxyaabihii u soo joogay dhacdadaasi 3 Oktoobar.
1992 December ayaa waxa fasaxay UN-ka waa caddahay iyadoo maqal iyo muuqaala wariyaashii adduunyada jaraa'idka adduunka waxay yiraahdeen markaas waxay isweydiiyeen qaramada madoobe waa maalintii ugu horeysay ee dal qaramada madoobe ka tirsan in xoog lagu qabsado ay fasaxdo qof walba ay taariikhda ogow 1992 December 6 marka waxaan rabaa marka dadka halkaan isugu yimid iyo dadka kale oo dunida daafeeda kala jira ama dalka ku nool dalkeena in la dumiyo waxa uu sababahay qaramada madoobe cid kasta ha u soo marto Maxalimo Maxamed Afrax oo kamid ah dadkii dagaaladaasi ka qayb qaatay ayaa sheegtay inay dagaaladaasi ku weysay caruur ee dhashay iyo waliba wiilal la dhashay waxaan kamid ahay hooyooyinkii dagaalkii gardarrada ahay oo Mareykan hogaaminayay oo 3 October wiilashoodii ku waayay aniga laba wiilo ila dhalatay ayaa waxay ku dhimatay markaan ka soo kaco maxay ahayd familada aan ka soo jeedo walaalahay ila dhasho igu hooyo igu aabba dagaalkii 7 dagaalkaas 3 mar ku dhaawacmay wiilashaydina waa ku dhinteen waxa idhibaysa in maxay ahayd maanta aniga nin Soomaaliyo oo hortayda ku yiraahdo dawladaha aan saaxiibka la Bashiir Axmed Cismaan oo kamid ah siyaasiyiintii sidii dhow ula soo shaqeeyay Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ayaa ka sheekeeyay qadiyadii ay ku dagaalamayeen xilligaasi Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd marka hore waxaan rabaa inaan iraado hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadda 25 guurada ka soo wareegtay maalinta guusha isbaahaysiga qaranka Soomaaliyeed oo ahayd guusha shacabka Soomaaliyeed waxa maanta aan ka hadlayno in kastay tahay maalintii 3 October misna waxa ay tahay inaan si guud ugu soo gunaanadeyno ama uga wada hadlayno halgankii qiimaha iyo qaayaha weynaa ee warshadka ka ah isbaahaysiga SNA kaas oo ujeedkiisu ahaa nabad cadaalad midnimo iyo horumar ugu dambeyn Sheekh Ilka Dahab oo kamid ah culimada Soomaaliyeed goobjoog u ahaa dhacdooyinkaasi ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay dhibaato ku hayaan mar walba dadka ajaanibta waxaan ogtihiin nimankaas laayay dadkii wadaniyiinta ahaa ee madaxda ahaa ee Soomaalida ahaa ee dantooda ka shirayay cadownimada u laayay waxaad ogtihiin inay yihiin Ameerika iyo xulafadooda waxa iyaga saaxiib la waxa allaala wixii fidnaha Soomaaliya ka socda Ameerika ayaa ka dambaysa kuwa diinta jeclaayo danta guud u jarmaaday ayagoo wada joogo isku meel ku jahaysanoo u jidbaysan dalkeena jin aan ka naxaynayo jaahiliintii xasuuqday rabbi baa jirabaye muwaadintii shahiiday jaliilow muwaadintii shahiiday jaliilow rabbiyow jannadii ka waraabi dadan jaifa geysan oo wadankooda dhex joogo aayahooda u jeelan jid maahayn in la laayo waxgaradkii aan jeclaynayo jaamiciin la xasuusto jamaamuurtii dalkeena sida loo jilidgooyo sawaariq kala jaad iyo jiibka lagu garaacay ma ilowna jabkaasoo jugtii baan maqalnaayo jiifkii baan ladi weyno jirkii baan xanuunay jaliilow rabbiyow ummadeeni jihiiday jannadii ka waraabi annagoo jirabkii iyo jugta gaartay dadkeena weli jaanta rogayna jadulka ka hadlayno maanta loo wada joogo taariikh weeye jidaysanoo weligeed jiri doontee jireer aan la aqooniyo yaan jilaafa la moodi jirooyin uunka ku faafiyo ma abuurno jidgooyo wanaaggaa jecelnahay wanaagaynu jeclahaynahay muwaadintii shahiiday allow jannadii ka waraabi halkaas waa ducadii kow qofkii dunidii waqtiga duruus uga baahanow dalkeena iyo degeladii iyo dugiya taariikhda dudada Soomaaliyeed
weligeed dib u socoto iyo daciifnimo lagu xaman dagaal hadday dhacaan dawaa laga gaari jiray waxay daldaloola jira dhaqsaa la dabooli jiray dalkeenu dad buu lahaa wadani diiruu lahaa difaac adag buu lahaa doqowta lisuu lahaa maantana sida loo dayacay haddii laga wada damqado dul buu soo kabanayaa dadkuna waa wada diyaar dawana maantay dhowdahay duliya dacal waa la kacay دولية دعوة لك عيدونا ما تيدو ده هي دنجود باللب برمضي دعت إيه وده شقين تقدر هالوتشضي دقنا العروس بالهلي دفاع باللوج قتدي دلك اللون دمنيا دب اللون شيريا دل باللون مرحيا دريق نوام در درين كونوا مغرن دل كونوا وعده وسلام